munaasabad aad u ballaaran oo lagu taageerayo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Odense ee wadanka Denmark. xafladani ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Odense ayaa waxaa ka soo qayb galay culmaawdiin aqoon-yahano marti sharaf ka kala yimid magaalooyin kala duwan ee wadanka Denmark. kuwii sabab u noqdo inay Soomaaliya cadaaladeedii hesho dib u noolaato cadaalad ay hesho adduunka waxaa jira Ilaahay wuxuu abuuray xumaan iyo samaan waxaan Ilaahay ga baryeynaa kuwa samaanta raaca inuu ka dhigo qof walba waxa weeye sidii aad u taageeri lahayd oo aad ula shaqeyn lahayd oo niyad wanaagsan u muujin lahayd baa lagaaga baahan yahay sidii aynu u noolayn oo aynu wadankii uga rajo xumayn waa inaynu bedelaa oo niyad wanaagsan ku bedelaa oo Ilaahay wax wanaagsan ka rajaynaa u barina u ducaynaa qof waliba ehel buu ku leeyahay dalkii inuu la xiriiro oo la hadlo isbedelkaas uu geliyo caruurtiisa geliyo isagoo naftiisa geliyo ayaa loo baahan yahay sida daacadda nimanka oo la doortay Ilaahay inuu mutaqaala muslimkaas oo masaakiinta hoostooda tahay sida loo doorto oo xaq inay u maamulaan Allah u kaso anagana waa ku niyadaarnahay in ay mutaqaala ka soo baxaan wixii loo doortay walaalayaal waxaan kale u mahad celinayaa dawladda tan maanta timid ee ku meel gaarkii aan kaga baxnay dawlad baa dhashay oo ahayd ku meel gaar waxay u baahan tahay laftigeedu xusb ay u baahan tahay waa u soo dhabar adeegeen qodaxdii geedihii iyaga ka soo jaray dawladdii tan ka horeysana hambalyo baan u jeedinaynaa inaan u mahad celino madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarihiisii soo maray meesha labadii kala dambeysay farmaajo iyo Cabdiweliba waan u mahad celinaynaa la'aantood abaar weeye nimankan ma imaadeen magaalada Odense Denmark magaaladii ugu horeysay weeyaan oo kawduluuliya dhigtay waxaa jooga aabayaal Soomaaliyeed oo aad ugu faraxsan midnimada Soomaaliyeed waxaa jooga hooyo Soomaaliyeed oo waayeel ah oo loo duuday in la caawiyo oo la yiri waad isdabari kartaan waayeeladii halkan ay ku xareysan yihiin ilaa Mareykan bay joogaan Canada ay joogaan Australia ay joogaan waxay u baahan yihiin in dib u dejin loo sameeyo waxay u baahan yihiin qabiil Soomaali maanta way ka midowday calanka Soomaaliyeed baa la wada hood jooga dawladda Soomaaliya ee maanta dhalatay hilaac baxay way roobkii da'ay in Ilaahay noo shubo in Ilaahay doogi ka soo baxayna aanu anfacno mirahoodana guran intii xafladda ay socotay ayaa dadkii halkaasi ka hadlay waxay si qoto dheer uga hadleen marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray intii xafladda ay socotay ayaa sidoo kale waxaa qadka telefoonka si toos ah uga qayb qaatay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shiiqdoon oo isagu warbixin kooban ka jeediyay intii xafladda ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaano kala duwan safka midigtaaniga xiga oo waan ku saacideeyay safka midigtaaniga xiga oo waan ku saacideeyay
safarkana u badi gobolladii waa ku sugayaane gudaha iyo dibaddaba shacabkaad u tahay garaan gurya samaa u sahaansho guula kula jiriyo guulaysa saacido saddexda waa ku raacsanahay dawladda waana rabnaa waana taageeraynaa haddana ummaddu waa jeceshahay waana dad nadiifa ilaahay ha la garab gal maantana waxaan isugu nimid halkaa inaan dawladda cusub taageerno raalli baana ka nahay ummadda Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda joogta waxaan kula dardaarmayaa in ay garab istaagaan dawladda waxay u baahan tahay waa shacabku hadduusan dawladda dhisinna dawlad ma dhismayso shacabka Soomaaliyeed qurbi joogta waliba dhaqaalaha haysto in ay dalkii dawladii hiil iyo hooba la garab istaagaan oo dhaqaale ku bixiyaan oo wax walba ku bixiyaan dadka gudaha joogana waxa looga baahan yahay inay iska wax u qabso kula shaqeeyaan dawladda ayagii baa jooga annaga ma joogno marka waxaan qabaa in dawladda wax walba lagu garab istaagi karo dadka ay la garab istaagaan gabagabadii xafladda ayaa dadkii ka hadlay waxay ballan qaadeen inay taageerayaan dawladda cusub ee Soomaaliya waxayna ka codsadeen bulshada Soomaaliyeed ee dunida daafeeda ku nool inay garab istaagaan dawladda si ay u gudato waajibaadkeeda isla markaana dalka dib loogu soo celiyo hanaankii dawladnimo iyo kala dambeyn xafladdiina waxay ku soo gabagabooday jawi farxad leh Sahra Maxamuud Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Odense wadanka Denmark